salaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu asxaabta ku xiran bagaag production waxaa kusoo dhawaataan taariikh kooban aan uga hadlana fanaanadii caanka ahayd ee saade cali warsame ayay ku dhalatay degmada buuholde ee gobolka togdheer waxaana kusoo barbaartay isla deegaankaas kadib waxay usoo wareegtay magaalada muqdisho horaantii toddobaatanaadkii. Heestii ugu horeysay ee saade cali kusoo caanbaxday waxay ahayd heestii la oran jiray muqdisho. hase ahaatee horumarka faneed ee saade cali wuxuu sii tisqaaday maalintii ay gurigay ka deganeed magaalada muqdisho oo kusoo booqday abwaan siciid saalax oo ka mid ahaa hal abuuradii kooxdii iftiin ee wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta. siciid saalax waxaa si lama filaana dhagihiisa ugu soo dhacay saado oo qaadaysa hees. markaas ayaa uu inta ka helay codkeedu u weydiiyey, saado ma jecesha inaad noqoto fanaanad? saade ayaa ugu warcelisay ama ugu jawaabtay haa. waxaa halkaas ka bilowday inay wax ka tisha riwaayad la oran jiray tusmo iyo tawaawac oo 1974 uu alifay abwaan maxamed warsame hadraawi. waxaase riwaayadda in lasoo bandhiga diiday dowladdii markaas jirtay. waxaa kusii xigay heeso iyo riwaayado badan oo ay ka qayb gashay saade cali warsame. saade cali fankada maalinba maalinta ka dambeysa waa sii horumarayay, waxaana sanadihii sideedamaadkii kusoo kordhay doodo iyo ka qaybgal maansooyin ifinaya sida dalka xilligaas wax uga dhacayeen. waxay ka mid noqotay hal abuuradii ka qayb galay silsiladii maanso ee deeley lagu magacaabi jiray. horaantii 1990kii maalinta warbaahinta soomaaliyeed ee 21 Janaayo munaasabad lagu qabtay golaha murtida iyo maaweelada muqdisho, saado waxay hameenka halkaa ka qaaday heestii caanka baxday ee la oran jiray laanguruusan gado. waxaa heesta curiyey abwaan cabdi maxamuud aamiin, waxaana saado cali iyo isagaba loo taxaabay xabsiga oo muddo yar lagu hayay kadibna laga soo daayay. markii burburkii dhacay saado waxay ka mid ahayd dadkii usoo qaxay xagga Kenya, kadib waxay gashay dalka Mareykanka oo muddo ku dhow 20 sano ku noolayd. 20 sano waa yaryihiin dal reer galbeedka Soomaalidu ku nooshahay mid ay sabooqan, iyadoo ku howlaneyd wacyigelinta nabadeynta iyo midnimada bulshada Soomaaliyeed. waa marka fanaanad saade cali warsame ay madaxa ku xiratay ama wejiga ku xiratay calanka qaranka Soomaaliyeed, taasoo astaan u ahaa ilaa maalintii la dilay. waxay si isdaba jooga ugu curinaysay heeso, gabayo iyo halku-dhegyo looga horjeedo colaadda iyo kala qaybsanaanta. waxay dadka ugu baaqaysay in la midoobo, la iskana celiyo kooxaha laga hooyan la'yahay oo ugu horeeyaan kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab. saado waxay heli kartay inay si nabad iyo raaxo leh ugu noolaato Mareykanka, waxaase u diiday dareenkay u qabtay wadajirka, midnimada iyo dadnimada Soomaaliyeed. isagii bayna u dhimatay. waxaa dilay kooxaha nabadiidyaasha ee Al-Shabaab 23 Luulyo 2014, halkaasoo lagu aamusiyey codkii saade cali warsame. iftiinkii quruxdii faneed ee la qarsoontay codadkii macaanaa heesaha ay ku qaaday waxaa ka mid ahaa heestii caanka baxday ee la oran jiray laanguruusan gado. sidoo kale heestii majuumbaa dheg barjowday, maluuliyaa dhaxal la waayey. sidoo kale waxaa ka mid ah heestii dhawaaqa oo loona yaqaano dhammaan reer waqooyi aaway. waxaa kaloo ka mid ah heestii dalkayga waan jeclahay. sidoo kale heestii aad ku caanka baxday ee la oran jiray ila tali ku talin maayo. waxaa kaloo ka mid ah heestii la oran jiray cunaabi iyo heeso kale oo fara badan. 23 Julaayo 2014 ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho weerar ay fuliyeen kooxaha nabadiidyaasha ee Al-Shabaab. dhageystayaasha ku xiran bagaag production oo maanta intaa waxaan ugu eeg taariikh kooban aan uga hadlanay fanaanadii caankada Allah u naxariisto saade cali warsame. dhageystayaasha ku xiran bagaag production waxaan ka codsanaynaa inaad saartaan channelkan like, share, comment.